madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kadib markii uu wafdigiisu ka soo noqday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana wafdigu markaasi soo gaaray magaalada Boosaaso iyagoo dadku ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan madaxweynaha isla markaana madaxweynuhu ka hadlay dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada Boosaaso ee gobolkaasi Bari warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Boosaaso nooga soo dhalisay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas magaalada Boosaaso ayuu ka hadlay howlgallada ammaanka lagu sugayo oo ka socda gudaha Boosaaso kadib dilal qorsheysan oo ka dhacay toddobaadyadii la soo dhaafay kuwaas oo lala beegsaday 3 mas'uul oo ka tirsan maamulka Puntland sidoo kale madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday dagaalkii ciidamada Puntland ay la galeen kooxaha lagu sheegay Daacish ee kula dagaalamay Puntland deegaan xibeed ka Qandala ee gobolka Bari dhacda dhanka Bari ka tacsideynaya runtii dhowrkii qof oo saraakiishii dhimatay ee lagu dilay magaalada Boosaaso iyo madaxtooyada dabcan markii loo eego shidada Soomaaliya ka jirta iyo wax Soomaaliya ka dhacaya anaga qariib ay nagu tasooto uma bandin waxaas inay ka dhacaan dalkeena laakiin waan ku faraxsanahay isbedelka amni degmada iyo gobolka ay sameeyeen iyo tallaabooyinka degdega ah ciidamada Puntland ay qaadeen si ay u sugaan amniga dalka waa ku maadsan yihiin sidoo kale waa bogaadinaya ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee cadawga ka saaray Qandala iyo dhulkii Daacishtu ay soo galeen waa isku falaansho Puntland waa wanaag Puntland waa arrin muujinaysa ku deesho badan runtii laguna amaano Puntland meel walba ama beesha caalamka noqoto ama soo inta kala noqoto in anaga oon cidna aan taageero ka helin cidna aan gacan ka helin Puntland isku tashanaysa dhaqaalaheeda iyo dadkeeda iyo amnigeeda iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda ku tashanaysa dhulkooda mar walba ay xagsadaan amnigooda ilaashadaan dhulkooda difaacdaan wax aad u wanaagsan oo ugu farxo weeye bogaadinaynaa inta naga dhamanaa waa dhameystiranaynaa cadawgaas shidada iyo shaqada dalka ka wadana meel kasta aan joogno waa iska kaashanayna waan iska celinayna insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo geesta kale madaxweynaha Puntland maruu soo hadal qaaday hanaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya la filayay inay ka dhacaan sanadkan ayuu waxa uu sheegay in uu rajaynayo in dalka isbedel siyaasadeed ay ka dhacaan kaasi oo dan u ah ummadda Soomaaliyeed madasha qaranku meel fiican bay keentay runtii arrimahan doorashooyinka isbedelka dalka ka dhacaya wala socotaan doorashooyinka gobolada waa soo dhamaadeen badidood wax yar mooyaane waa ay dhamaadeen soo xulitaankii baarlamaanka iyo dhaarintii iyo wada socotin kulay akhbaaraadka si fiican baad ula socoteen haddana gudiyadii baarlamaanka la sameeyay gudoonkii baarlamaanka la doorto ka bacdina doorashadii madaxweynuhu ay dhacdo insha Allah waa rajaynaynaa marka in isbedel Soomaaliya wanaagsan isbedel Puntland laftigeeda ay wax fiican uga soo baxaan isbedelka Soomaalida wanaaga Puntland iyo wanaaga Soomaaliya labadaba isku xiran yihiin wanaaga Soomaaliya waa wanaaga Puntland wanaag Soomaaliyeed weeye wixii aanu ka rimay dawladnimada Soomaaliya inay ka soo baxdo ayaan rajaynayaa isbedel Soomaaliya oo aydo oo waqtiga adag ee lagu jiro ka saara in ay ka soo baxdo doorashadaasna waan rajaynaynaa insha Allah madaxweynaha Puntland oo hadalkiisu ay ku ekayd bogaadin ayaa waxa uu soo hadal qaaday abaaraha ka jira dalka iyo roobab lagu dirsaday oo qaar ka mid ah deegaanada Puntland ka da'ay Faadma Taxadar waa TV-ga waa Bari Boosaaso